qofka garaha ah muddo dheer geelan la jira oo san qubaysan inuusan korkiisa uraynin ama shiiraynin in ay asalkooda Quraysh yihiin geela dartiis dhaqanka garaha koonfur luqad buu ku hadlaa luqadda waxaa la yiraahdaa dad meel joogo waxay ku hadlaan markii ay luqado kale ku dhex jiraana mararka qaarkood waxaa loo isticmaalaa in la yiraahdo lahjad yani laakiin wax kastoo lagu hadlo waa luqad dadka ay ku hadlaan garo wuxuu ku hadlaa afmahaw luqadiis waxaa la yiraahdaa afmahaw ereyada uu degan yahay waa area u xiran garaha luqadaas mahawga way ilaashantay waxay ku ilaashantay inaanan luqado kale soo dhexgelin maxaa jira maxaa tirigana deris bay la tahay maygana deris bay la tahay sidaas awgeed dadka degan deegaanka mararka qaarkood ma yaqaanaan af maxaa tiriga iyo af maygaba keliya waxay ku hadlaan af mahaw af mahawga waa luqad kelmado badan Soomaalida kala wadaaga waay jumladihiisu ay Soomaalida ay wadaagaan waay meelo asal hal asal ay isla yihiin waxaa laga helayaa ereyo badan oo af may ah waxaa laga helayaa ereyo far badan oo af maxadri ah dadka halkan ku nool dhaqankooda waxay dhaqdaan xoolaha geela waa xoolaha loogu jecel yahay Soomaalida qofka Soomaaliga number 1 geel waay geela iyo xanaaneyntiisa ah waxaa lagu tiriyaa meesha ugu geeli badan ereyadiisa oo geel fara badan waxaa jira geel waa la amaanaa oo habeeno oo dhan meelaha marka la aroorinayo iyo markii uu joogaba waa la amaanaa geela garaha mararka qaarkood wuxuu isku tilmaamaa in ay asalkooda Quraysh yihiin geela dartiis maxaa jira waxay yiraahdaan geel gadgaduudan geel gadgaduudan baa haystaa Qurayshtan geel gadgaduudan baa haystay waxay kaloo sheegaan qofka garaha ah muddo dheer geelan la jira oo san qubaysan inuusan korkiisa uraynin ama shiiraynin oo qubays la'aanta darteed oo caraf u kordhaysa mar waliba dhaqankooda waa sidaas waxay aad ugu nool yihiin inay cabaan caanaha geela oo waxaan kale cunno uma arkaan hadduu caano geelba jiro iyo hilib geel waxaa weeye waxa kale taa waxay markaa dhaqan ahaan margeysiisay inaysan kalluunka cunin digaaguna aysan cunin ayagoo ka cunaa cuntooyinka digaaga ay cunaan kalluunkuna si kale u arkayeen yani deegaankoodana ma ahayn laakiin waxay ka aaminsanaayeen wax aan la cuni karin oo waxay u arkeen geelu taana geela xaggiisa kutubta cilmi ijtimaaca ugu waaweyn ibnu khalduun kitaabkiisa ka mid ah ibnu khalduun wuxuu kitaabkiisa ku sheegay dadka cuna xoolaha faakhirka ah keliya waa dadka ugu cumriga dheer waa dadka ugu cudurrada adkaysi badan waa dadka wuxuu yiri kal ibili geel waa dadka cuna waay qabiilkan tiradiisu aad bay u badan tahay dadka siday moodayaan maaha koonfurtan Soomaaliya weli lama tiro koobin Kenya la tiro koobay malaayiin buu gaaray marka taas waxay tusaysaa sida dhaqanka uu yahay iyo wanaagiisa ay u nool yihiin waa dad muslimiina oo dugsiyada quraanka iyo kutubta iyo culimadu ay sidaas u dhax socoto waay oonan wax kale oo khuraafaad oo ay aaminsan yihiin u jirin